السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن مالين قرب طبعا خبيب وناكسن صباح وناكسن وقت والبو أي قوضة هي وناكسن ورجيني يعني إلهي كان وديالي عذر كهلستها كورونا فيروس انتو waxaan xusan ilaahay ha ka nabadgeliyo oo ilaahay ha ka caafiyo caawa axadaas isniina sii bixaysa talaadana way soo galaysaa barito cido ilaahay gaarsiyo una qoran inay gaarto ayaa gaari doonta caawa kale waxaan qaadanaa dhismaha hadalka habeenkii hore ee habeenkiisa ahaa waxaad la soo aragnay hadalka ahaanshaha ah waxa la yiraahdo hadalka ahaanshaha ah qaanuunka loo raaco ayaan soo baranay hadalka ahaanshaha ah qaanuunka loo raaco waxaan niri wuxuu ka kooban yahay horgale in marka hore la sameeyo oo horgale in la keeno oo horgale muxuu yahay waan ka soo hadalnay cashirkii ayaan kaga soo hadalnay ee labaad marka labaad ee horgalaha marka la keenana is in la keeno way ama in am la keeno waaye ama in ar la keeno waaye islaashta iyo balaaska farqiga u dhaxeeya muuqaalka hore ee ku soo daawanay kadibna waxaa lagu darayaa complement ya lagu darayaa meeshaan marka haddii sifa ay timaado adjective hadduu yimaado halkan baa la gelinayaa haddii hadalka uu ku jiro sifo adjective-ka sifadaasaa la gelinayaa kadib waxaa lagu darayaa dhamaystirka hadalka ama noun-ki baa lagu dhamaystirayaa magaca lagu dhamaystirayaa okay marka sidaan baa loo sameynayaa oo ardadu badankood waxaan niri adjective-ka iyo noun-ka ayay kala hormariyaan adjective macnaha waxaa weeye markaan ka hadlayno qof sifo uu leeyahay oo kale inaan tilmaamno wuu gaawan yahay ama wuu dheer yahay inaan tilmaamno aan doonaynaa markaas ardadu waxay sameynayaan magacii ayay soo hormarinayaan sifadii bay gadaal geerayaan tusaale ahaan waxay dhahayaan Ahmed waa wiil dheer meeshay dhihi lahaayeen Ahmed is a tall boy waxay leeyihiin Ahmed is a boy tall sidaasay leeyihiin markii la yiraahdo Ahmed is a boy tall markii la yiraahdo waxa weeye labadan baa la kala hormariyay waana qalad in waxa loo baahan yahay marka sifadii iyo sida la isugu xiraa loo baahan yahay cashirkan caawa aan dhisi doona waa 6 paragraph 6 sadar oo word-ka ah weeyaan 6daas sadar waa af Soomaali waxaan ka dhigi doonaa af English waa sheeko caadi ah shakhsi qof gabar la yiraahdo Mary ayaa laga sheekeynayaa hadalkan ma ahan hadal aniga aan dhisay oo aan sameeyay waa hadal marka hore English ahaa ee aan soo tarjumay oo adinka aan rabo inaad mar kale dib u dhistaan hadalkan waxyaabaha soo laalaabanaya ama meelaha la isku khaldi karo bold ayaan idin soo saaray ama waan idin soo weyneeyay waan idin sharxayaa waxyaabaha aad u isticmaali doontaan kadibna muuqaalkii ayaan guda gali doonaa marka wuxuu ku saabsanaan doonaa cashirkan kaliya ahaansho wax ficil la sameynayo ma soo gali doono waxaa marka laga hadlayaa gabar maadaama gabar laga hadlaayo gabadhu waa she dabcan laakiin maanta waxaan soo qaadanay cashirkeenii hore she waa la iska dhaafi karaa oo magaca lagu bedeli karaa baan dhahnay marka hadda Mary ayaa noo noqon doonta meesha she aan isticmaal lahayn Mary aan isticmaalaynaa cashirka waxaa ku jira lahaansho ayaa ku jira oo my iyo your iyo our iyo lahaanshooyinkaas hal ka mid aha soo laalaabanaya waan ha ayaa soo laalaabanaysa oo iyada waxeeda maadaama gabadh laga faaloonayo gabadha jirkeedii bishimaheedii qaybo kasta jirkeeda kamid ah baa laga faaloonayaa marka ha ayaa la isticmaali doonaa markaan waxaan idin fahansiinayaa qaybaha oo boldiga aan soo saaray ama aan soo weeweynay oo aan rabo inaad isticmaashaan iyo waxyaabaha aad u isticmaali lahaydeen marka waxaan rabaa cashirkan markaan af Soomaaliga ku akhriyo inaad muuqaalka pause iska tiraahdo oo aad isku daydo in aad adiga dhisto kadibna muuqaalka aad daarato oo aad iska xaqiijiso waxa aad dhistay iyo waxa aniga aan dhisay isla haashooda waxyaabaha meelaha boldiga aan kugu taataabanayo anna aan kugu sheegay waxyaabaha aan isticmaalayna waxyaabaha ku habboon in loo isticmaalo ayaa waxay tahay
inaad iga hormarto aad iga hor dheereyso oo aad horteeda ka shaqeyso cashirka kadibna waxyaabaha ani aan ka shaqeeya inay ku ahaadaan wax aad isaga saxeyso keliya cashirka. waayahay cashirkan aan gudagali doonaa. markuu cashirka dhamaado waxaa la sameyn doonaa exercise aan idin diri doonaa, isla cashirkan idin diri doonaa. kaliya waxaan bedelaynaa lahaanshaha ayaan bedelaynaa. okay, markaa lahaanshaha aan bedelno oo aad ka shaqeyso waad iisoo sawiraysaa, magacaagana koraad iigu soo qoraysaa, meesha aad joogtana waa iigu soo qoraysaa. tusaale ahaan waxaad leedahay my name is hebel hebel hebel. haagan waxaad ku qoraysaa live in oo ku nool hebel hebel hebel, magaalada aad ku nooshahay Muqdisho degmo hebel aad kusoo qoraysaa. cashirkeed isku dayaysaa marka aan kuu diray waa soo bedelay waad soo sameynaysaa. markaad soo sameysod gacan xaansha kusoo qorto waad sawiraad ka qaadaysaa, waxaad iigu soo diraysaa whatsappka. haweenka oo ay soo galayso, haweenka khamiisi ay sii baxayso oo jimco ay soo galayso, haweenkaasaan ka dhigi doonaa ardada yacnaha ardada isku dayga ardayda ay sameeyeen ayaan ka dhigi doonaa. muuqaal noocaas ayaan soo gelin doonaa, isku dayga ardayda ayaan kusoo qori doonaa insha Allah. part 1 part 2 part 3 shanta arday ugu horeysa ayaan soo qaadan doonaa. inaad saxda inaad khalid muhiim ma aha ee waxay tahay shanta ugu horeysa ma ka mid tahay adiga. waad mahadsan tahay. now let us go. Maria jirkeeda markii la yiraahdo Maria her body ha dhihin ee waxaad isticmaashaa apostrophe oo ah Maria's body. Maria's body. yastaas aad qoraysid ayaa ayay noqon doontaa lahaansho noocaas ay noqon doontaa. meeshaan dhexdhexaad ah ha isticmaalin middle ama medium, waxaad isticmaashaa right size. inaan u isticmaalno dhexdhexaad waxaa keenay tafsiirka hadalka. aad uma dhaadheera aadna uma gaagaabna ayaa waxay dhalisay right size inaan u fasirno dhexdhexaad. inaan fahamtay baan rajeynaya. meeshaan marka aadna markii la dhaho waxaa laga wadaa an aa ku jirto. cafwan aadna markii la dhaho aad waxaa loo isticmaalaa to. waay. aadna markii la isticmaalana an aa ku jirto. aa ku jirto oo ma gaagaabna. wejigeeda qayb ka mid ah madaxeeda wuu qurux badan yahay. iga dhaaf macnaha meelaha boldna ku aqrin rabaa. macaan oo kale markaa isticmaalaysa waxaa isticmaalaysaa sweet. nadiif brownka ah waa nadiif. brownka waa iska brown aad isticmaali doontaa brown. nadiifkaana waxaad u isticmaali doontaa clean ha isticmaalin, isticmaal fresh isticmaal. yaryar yihiin small ha isticmaalin, waxaad isticmaashaa little. sankeedana markii la dhaho ha ilaawin, sankeedana an aa ku jirta meeshaan. qaybtaas kale inta qaybahan kalena wax kale oo nood ah kuma jiro. okay, marka hadda waxaan rabaa inaan muuqaalka ka shaqeeyo oo aan kuwaan ka shaqeeyo. inaan marka waxay noqonaysaa screenka aan gaabsado si aan ciyuub ugu shaqeeyo. haddii kale qalinka xawaaro ma kulihi oo si fiican ugu shaqeyn karo qalinka. okay, inaan saan ugu shaqeeyo ayaan rabaa. Maria jirkeeda markaan dhahaayo waxaan leeyahay Maria's body. wuu qurux badan yahay. hadda markaan dhahay Maria's body horgalahayga waan haystaa. maxaan ku xijinaa marka is ama am ama r inaan keeno is ha dhahaa. marka qurux badnaashana waa maxay beautiful. Maria's body is beautiful. lugaheeda waa dhexdhexaad. meeshaan lugaheeda lahaanshaa ku jiro. lugahii waa jamac. legs horgale waaye. haye legs haddii horgalihii la keeno maxaa lagu xijinayaa am is r maano r ku xiji. markaa r intay ka imaanay sababtoo ah jamaca meesha yaalo. legs are the right size. waayahay
aadna uma dhaadheera, not too long, aad uma dhaadheera, aadna uma gaagaabna, and not too short, and not too short. wejigeeda her face, qayb ka mid ah madaxeeda, part of, qayb ka mid ah madaxeeda lahaansha ku jiro, her head, qayb ka mid ah madaxeeda wuu qurux badan yahay. haye her head marka waxay noqonaysaa horgalay noqonaysaa maano, wuu qurux badan yahay ahaanshaha keen is beautiful. saanaan kaga dhamaana qaybta koowaad. waan rajeynayaa inaad qaybta hore sidaan u qortay. haddii aadan sidaan u qorin ha ka walwalin, dhibaato ma lahan. muuqaalada kale ee soo socda ayaad si fiican u fahmi doontaa. haddaba waxaan kaa rabaa in hadalkan aad u badasho adiga mid kugu salaysan. aad dhahdo jirkayga wuu qurux badan yahay, lugahayga waa dhexdhexaad, aadna uma dhaadheera, aadna uma gaagaabna, wejigayga qayb ka mid ah madaxayga way qurux badan tahay. adigaa isku salaynayo. exerciseka layliga aan kaa rabo waxay tahay intaanad oo adiga kugu salaysan ayaad iisoo qoraysaa. waayahay qaybta kalikii. qaybtan waxay ka bilaabanaysaa bishimaheeda lahaanshaa ku hormaraynaa. ha bishin maxaa lagu dhahaa marka? waa soo qaadateen. ha lips, bishimaheeda waa macaan yihiin, ahaanshaha keen r. macaanka muxuu ahaa? r sweet, r sweet. indhaheeda brownka ah, marka horta waxaa keenaysaa lahaanshaha keen ha. indhaha ha keenine midabka keen. ha brown, ha brown eyes keen markaas, sababtoo ah sifada iyo magaca sifadaa lasoo hormarinaa. ha brown eyes, indhaheeda brownka ah waa nadiif, ahaanshaha keen r fresh, r fresh. maariya timaheeda, Maria's hair dhextana, Maria's hair, Maria timaheeda haye waa madow, ahaanshaha keen is black, Maria's hair is black. waayahay dhagaheeda waa yaryar yihiin, lahaanshaha keen ha. dhago ears, ahaanshaha keen r little. dhagaheedu waa yaryar yihiin, sankeeda wuu gaaban yahay, sankeedana maano an her nose, sankeedana waa gaaban yahay, hal waay, ahaanshahii keen is short, sankeedana waa gaaban yahay ama wuu gaaban yahay. kan waxaa ka dhigaysaa marka bishimahaygu waa macaan, indhahayga baroonka ah waa nadiif, timahayga waa madow, dhagahayga way yaryar yihiin, sankaygana waa gaawan yahay. af ingiriiskeeda keen adiga isu soo salay. waayahay qaybtaana maxay leedahay? wuxuu ku yaalaa dhexda wejigeeda quruxda badan, macnaha sankaa laga hadlaya. marka wuxuu ku yaalaa sanka it a u qaadanaynaa. it haye ahaanshaha keen it is ku dhex yaalaa in. dhexda maxaa la dhahaa? it is in the middle, it is in the middle oo wejigeeda quruxda badan of her, quruxda keen marka beautiful face. ilaan wejiga iyo sifada waxaa lasoo hormarinayaa, sifadaa lasoo hormarinaa. waayahay full stop. wuxuu u dhexeeyaa indhaheeda quruxda badan iyo afkeeda macaan. it is, ilaan sankaa weli laga hadlooya. it is u dhexeyn maxaa la dhahaa? between, it is between indhaheeda quruxda badan ha quruxkeen beautiful, ha beautiful eyes, indhaheeda quruxda badan and afkeeda macaan ha macaankeen ha sweet mouth. marka mar walba ka taxadir inaad magaca iyo sifada aad sifada soo hormariso. kan marka waxaad sameynaysaa sidaa ku dabaqaysaa. wuxuu ku yaalaa dhexbartanka wejigayga quruxda badan, wuxuu u dhexeeyaa indhahayga quruxda badan iyo afkayga macaan ayaad ka dhigaysaa. carabkeeda wuxuu ku yaalaa afkeeda dhexdiisa,
hatang carabkeeda wuxuu ku yaalaa, hatang is in, carabkeeda wuxuu ku yaalaa is in her mouth, afkeeda dhexdiisa. haka ilkaheeda way ku dhex yaalaan sidoo kale. her teeth ilkaheedana are in it, afkay ku dhex yaalaan also. waaya aad ayay u qurux badan yihiin, wayna cadcad yihiin. ilkaha soo ma laga hadlin, they isticmaal len waa jamace. they are very beautiful, wayna cadcad yihiin and white. intaan marka waxaa leedahay carabkeyga wuxuu ku dhex yaalaa afkeyga dhexdiisa, aad ka dhigaysaa. ilkaheyga way ku dhex yaalaan sidoo kale. ilkaheyga aaday u qurux badan yihiin, wayna cadcad yihiin. cashirkeenii koowaad halkaa haynoo jooga ardaye. haddii ay kugu adkaato insha allah habeenka xiga waan dulmari doonaa sida aad u samaysay, balse waxaan rajaynayaa in ardadiina qaarkood ay kasoo jawaabi doonaan, ay kasoo shaqeyn doonaan, islamar ahaantaana habeenka khamiisi ay sii baxayso, jimcana ay soo galayso, ardadaas magacooda aan soo xusi doono iyo degmooyinka ay joogaan. kaalinta koowaad qofka galay, labaad kan galay, saddexaad kan galay, sidaa aan kusoo sheegno. haddii ay dhacdo in arday uu kasoo shaqeyn waayo, anigaa kasoo shaqeyn doono oo idin soo dhigi doono insha allah. waad ku mahadsantahay daawashadaada. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.